filimka Steel mid kamid ah aflaamta faniga ama shactarada badan leh kan waa filim mar hadii aad bilowdo aadan dhex uga tagaynin waa filim shactara badan leh kaas oo la isku keenay wajiyalka cusub fanka Hindiya qaasatan Bollywoodka hadda waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan balse intaan u gudagal muuqaalkayga waxaan ka codsanaa channel ku soo birto muuqaalka dadka like inoo saar si share gareeyo la wadaag asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filimkan Steel waa mid kamid ah aflaamta faniga ama shactarada badan leh kaas oo soo baxay horaantii ama dhamaadkii sanadii 2001 waxa hogaamiyalka Salman Joshi Sahil Khan Riyaz Sini Shilba mudgal gabadha lagu magacaabo filimkan 28 December sanadii 2001 ayaa tiyaatarada Hindiya la saaray marka la eegna filimkan tiyaatarada la saaray waxa lagu sheegay in ka badan 100 tiyaatar lacag lagu kharash gareeyay oo 2.5 karoor oo dhiganta in ka badan 300 kun oo dollarka Mareykanka waxa uu keenay 5.35 karoor waa in ka badan 700 kun oo dollarka Mareykanka natiijaan wuxuu noqday samihid فيلم يقول وينجحري مركز لاجو فيلم نحن كل هذه أنا فيلم كان يحققون كهلاجد ديفان قال لي لا بيان كي جدنا صاحبي الحقيقة ورث فيلم كان محلي وفيلم كيوري وجميل خدان خدان شرمان جوشي صدق كله جلاجة سهل قان ولا بد جلاجة فيلم كان جميل شكا صاحبي حقيقون كانوا حكمين فيلم كان محلي قبل وضع يلاقي سميكاس ولا هو مقعد رئيس هذا فيلم كان كوجرتي تاسو لو مقعد اسكوسمي لو كنت سدحلي أيو صباح فيلم كاس كان حقيقون كانوا حقيقة كهجلاجة شيء كبر أسيو عدو دائرة فيلم كان الربع اللورد يو باسك شرمان جوشي لكن وحوير لبسنا ونسينا كذب ما لو سنة كدب أي فانكينتي كوسو بيرسا درتد بوسكو حنسيبو ياشي جلاغا لو مغاو شرمان جوشي صاحبيال حقيقون كلو حقيب كا فيلم كاني هاستا كوجرتا اسكوسمي ياري waxay noqotay mid kamid ah heesaha ugu caansan ee sanadkaasi soo baxay xaqiiqada ugu dambeysay filimkan in kala wadaagi doono xawiyaan kadib guushii lama filaanka uu gaaray directorka magacaasimaha filimkan in kala magacaabo Anjandar wuxuu si kaftan u dhahay markii wiji cusub aan film u dhiibay guul ayuu gaaray asigoo tusaale u soo qaatay ninkii Nana Patekar u dhiibay aan quush filimka lagu magacaabo sanadii 1996 sidoo kale Tishada Maduri Dix oo filimkeeda ugu horeeyay Tezaab u dhiibay 8 soo baxay labadaas filimba waxay noqdeen aflaam guul gaaray labadaas aktarna fanki ku cusbaayeen aflaamtoodana waxay noqdeen yani kuwa guul gaaray saaxiibayaal hadaba intaas ayuu soo gabagabeeyay xogtii xaqiiqooyinkii aan kala wadaagay filimka shactarada badan ee Steel muuqaalka dadka like inoo saar si share gareeyo la wadaag asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena